السلام الله عليكم داودyaal meel walba joogtaan halkan waa bartida Facebook ee Maxamed Suudi aniguna waxaan ahay Suudi soo dhawaada saaxiibayaal xubnaha mucaaradka ayaa maanta isku raacay qodob muhiim ah oo waliba muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed mustaqbalkooda iyo aayahooda baritool ayaa la maleysanayaa in ay markii saddexaad laba bilood gudaheed ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo mucaaradka kulan wada yeeshaan wada fadhiistaan baritool waxaa la maleysanayaa madaxtooyada Soomaaliya in mucaaradka iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud halkaas wada hadal uga furmo xubnaha mucaaradka ayaa isku raacay marnaba in aysan wanaagsaneyn in la qabto doorasho dadban taasina ay shacabka Soomaaliyeed ugu jirin doorasho dadban waa mid shakhsiyaad ama shakhsi oo ku shubanayo mas'uuliyadda doorashada ka yeelanayo balse waxay leeyihiin doorasho dadban waxaan doonaynaa in halkaas loo gudbo sidoo kale xubnaha mucaaradka waxay soo jeediyeen in aysan suuragal ahayn in iminka lagu dhawaaqo doorashada qaabka u dhacayso iyo doorashada si loo wajahayo ayadoo ay maqan yihiin qaar kamid ah maamul goboleedyada Soomaaliya sida Puntland iyo Jubbaland si kastaba noqotee bari kulanka dhici doona madaxtooyada oo dhaxmari doona mucaaradka iyo madaxweynaha wixii ka soo baxay isla iyagu doona muuqaalka sheer garay leegtasaar saa ula socota wax kasta oo ka soo kordho siyaasadda Soomaaliya soo dhawaada saaxiibayaal.